maxaa isku soo aadiyay weerarka bartilmaameedsiga lagu hayo xubnaha mucaaradka marka la fiiriyo hadalka dhawaan uu jeediyay Cali Maxamed Geedi. Cali miyuu noqday afhayeenka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya? adiga ka ahaan qaybta faalada waxaad noogu reebtaa hadalka Cali Maxamed Geedi iyo waxa socda marka aad fiiriso bas leedahay wax xiriir ah ayaa ka dhaxeeya. soo dhow muuqaalkan si gudbi la gareeyo shargare oo la sii wadaaga asxaabtaada kuna soo biir boggeena Stele Artis Umarani dhan kastaba cajiib weeye dhaliil male aan leeyahay adduunku waa hayaan waxa la hiigsadaa halkuu tagay asaaga boor hanaan laho heybad iyo bidhaan tayo lagu hirtaa Stele laga helaa Stele Artis Umarani ganacsigii hodgalay hami iyo wuxuu horumar u dhalaa kolka boor la hubo naqshad heer sariyo daabacaad uu hele hadda kaalay arag Stele Artis Umarani Stele Artis Umarani waxaad ka helaysaa qoraalada iyo sawirada boorarka ganacsatada hay'adaha wasaaradaha iyo shirkadaha sidoo kale waxaad ka helaysaa daabacaada boorarka bacaha daabacaada fanaanadaha sportiska qoraalada goobaha waxbarashada qoraalada booyadaha qoraalada 3D-yada iyo buufinta plastikada wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir telefoon lambarada kale ah eber 672989835 ama telefoonka kale eber 627729835 afkiisa madaafiic wax ka daran ayaa ka dhacay maalmahan dambe. Cali Maxamed Geedi wuxuuna tooshka ku hayay xubnaha mucaaradka ee diidan habdhaqanka Villa Soomaaliya madaxweynaha waqtigiisu uu dhamaaday ee weli mukayfka iyo Villa Soomaaliya dhex jooga Xasan Sheekh Maxamuud oo hal sano oo dheeraad ah sheegaya in doorasho qof iyo cod ah uu ku qabanayo xubnaha mucaaradkana ay ka soo horjeedaan habdhaqanka weerarka iyo sidoo kale dhulboobka ka socda gudaha caasimadda iyo qeeladan joogtada ah ee shacabka Soomaaliyeed ka soo yeeraysa 4 sano burburinta guryaha barakaca dadka shacabka ah halka sano ee dheeraadka ah iyo villada uu iska sii joogo Xasan Sheekh iyo sidoo kale tiimkiisa. haddaba sheekada maanta halkaasi ma joogto waxay tahay Cali Maxamed Geedi hadalka maalmahan uu jeedinayay ee sukuuradka amal uu ula socday xubnaha mucaaradka iyo weerarkan tooska ah ee madaafiicda lagu asqeynayo xubnaha mucaaradka weerarkan joogtada ah iyo sidoo kale dadkan shacabka ah ee dibadbaxyada loo diidayo maxaa isku soo beegay bal inta faahfaahinta kale iyo aragtidaada aan cabirin aan wada dhageysan horta hadalka Cali Maxamed Geedi muxuu leeyahay muxuu ku weerarayaa xubnaha mucaaradka. waxaan maqlay hadda maalmahan 4 bisha mudaaharaada jiray banaanbaxa jiraya lagu gubto lagu hoo siyaasiyiinta waxaas ku hadlaya ku hadaaqaya caruurtoodii iyo qoysaskoodii ma joogaan dalkan kuweena rabaan inay dab saaraan ma ka yeelina anaga ma doqon baan ma aqligaana yar ma cilmigaana yar ma way aragnimo ugu yar afkooday ka hadlayaan cid u soo baxayso shacbiyo kuwaas taageeraysa anugu ma aaminsan inay jiraan dad badan oo adiga aad ka mid tahay waxa isweydiinaysaa Cali Maxamed Geedi tubumiya u suran madaxtooyada Villa Soomaaliya mise waxa uu waayihii dambe noqday afhayeenka Villa Soomaaliya marka la eego hadaladan culus ee miisaanka leh ee uu ku riday xubnaha mucaaradka iyo guwaabinta markasta uu siinayo shacabka Soomaaliyeed ee ah in waxa socda aysan ku lug yeelan. haddaba laba qodob ay dadku u kala qaadeen mid waxay leeyihiin waxa uu shacabka Soomaaliyeed la rabaa in amni ay ku noolaadaan qof kasta ayaa raba in amni uu ku noolaado laakiin marka xaaladdu halkan ay joogto oo mucaarad iyo muxaafad ay ishayaan sheekadu ma joogto halka ay la leeyahay Cali Maxamed Geedi uu ka hadlayo ee mucaaradku waxay xaq u leeyihiin inay afka furtaan hadlaan dawladdu waxay xaq u leedahay in ay hadasho laakiin sheekada kuma wanaagsano madaafiic in la isku asqeeyo lees caburiyo dadka gurigoodii la boobo dhac iyo sidoo kale boob la geysto sidoo kalena rag sheeganaya dawladnimo shaarka dawladda watana inay shacabka gurigoodii dhacaan oo waliba lacago aysan heli karin oo $20,000 ah ay ku xiraan. haddaba Cali Maxamed Geedi maalmahan dambe kabta ayuu u saaray xubnaha mucaaradka
waxaana aad u dhaliilaya marka la eego xubno kale oo siyaasiyiin ah oo sheegaya in dana gaar ah oo cali ku haysto hadalladan uu jeedinayo iyo difaaca joogtada ah ee villa Soomaaliya uu hayo laakiin aysan ka ahayn rabitaan iyo jacayl uu qabo Xasan Sheekh Maxamuud iyo nidaamkiisa villa Soomaaliya ku hareeraysan. Haddaba adiga ka ahaan Xasan iyo sidoo kale Cali Maxamed Geedi xiriir nuucee ayaa ka dhaxeeyay aad is leedahay oo mucaaradka marka